madaxweynaha Mareykanka oo uu haleelay COVID-19 ayaa waxaa la dhigay isbitaal military oo lagu magacaabo Walter Reed Medical Center kaasi oo ku yaala dowladka Waqooyi Galbeed caasimadda dalkaasi ee Washington. uu Trump soo dhigay bartiis Twitter-ka markii la seexiyay isbitaalka ayuu wuxuu ku sheegay inuu u maleynayo in caafimaadkiisa soo hagaagayo. madaxweyne Trump ayaa la filayaa inuu hal maalin ama ka badan ku sii jiro isbitaalka intii uu ka soo bogsanayo. Trump waxaa la sheegay in isbitaalka uu jiifo ka fuli doono howlihiisa maalmeedka ee shaqo ee uu aqalka cad ka maarin jiray. ma jirto wax cilmi rajina oo uu madaxweyne Trump oo 74 jir culayskiisu leeyahay 110 kiilo uu qaaday si uu awoodda si ku meel gaar ah ugu wareejiyo ku-xigeenkiisa Mike Pence. xanuunka Trump ee COVID-19 waxa ay sare u qaaday su'aalaha la iska weydiinayo suurtagalnimada waxyeelo ka soo gaartay doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha soo socota ee November bilowgeeda. waxaa kale oo u muuqdaa in isaga lagu qasbay in ugu yaraan isaga baxo ololihiisa doorashada maadaama marka la eego daadiisa ay arrintaasi ku qasbayso inuu ugu yaraan hal isbuuc kasii maqnaado howlihiisa shaqo ama ololaha doorasho ku jiro. dhinaca kale maareeyaha ololaha doorashadiisa ninka lagu magacaabo Bill Stephen ayaa waxaa isna laga helay COVID-19 oo horey ugu dhacay madaxweyne Trump xaaskiisa iyo mid ka mid ah la taliyayaashiisa khaaska ah. afhayeenka madaxa ololaha doorashada Trump Tim Murtaugh ayaa waxa uu xaqiijiyay inuu madaxa ololaha doorashadiisa uu ku dhacay COVID-19 iyadoo markii ugu horeysay uu wargeyska Politico magazine baahiyay xanuunka mas'uulkaasi. xildhibaanad Ilhan Omar oo ku eedeysay Donald Trump faafista COVID-19. xildhibaanad Soomaali Mareykanka Ilhan Omar oo ka tirsan Koongareeska dalkaasi ayaa eedeyntaas jeedisay kadib markii madaxweyne Trump uu ku dhacay cudurka COVID-19 lana dhigay isbitaal military oo ku yaala dowladka Washington. Ilhan Omar oo dagaal siyaasadeed kala dhexay Trump waxay ku eedeysay inuu halis ku yahay caafimaadka dadka reer Mareykan uuna mas'uul ka yahay geerida 200,000 oo qof oo COVID-19 ugu geeriyootay gudaha Mareykanka. xildhibaanad Ilhan waxay kaloo xustay in Trump iyo taageerayaashiisa xisbiga Jamhuuriga ee ku nool gobolka Minnesota ay si firfircoon u faafinayaan cudurkaasi waa sida hadalku tiri. dhinaca kale hogaamiyaha dalka waqooyiga Korea Kim Jong Un oo aysan isku fiicneen Mareykanka ayaa waxuu dhambaal qoraal u soo diray madaxweyne Trump iyo xaaskiisa Melania oo uu rajeeyay inay ka soo bogsadaan xanuunka COVID-19. warbaahinta dalka Korea ee sida rasmiga wararka u faafisa ee loo yaqaano The Korean Central News Agency loona soo gaabiyo KCNA ayaa sheegtay inuu hogaamiye Kim Jong Un u rajeeyay Trump iyo xaaskiisa inay sida ugu dhaqsaha badan uga soo kabtaan xanuunkaasi. Kim Jong Un waxaa kale oo uu salaan diran u diray madaxweyne Trump oo haatan lagu daaweynayo isbitaal military oo ku yaala dowladka Washington. daawadayaal xubintan waxaynu ku soo qaadanaynaa maxaynu kala soconaa isbitaalka heerka sare ee Walter Reed National Military Medical Center ee lagu daaweynayo madaxweyne Trump. sida aynu socono madaxweyne Trump iyo xaaskiisa iyo xubno ka tirsan shaqaalihiisa ayaa waxaa laga helay cudurka COVID-19 taasi oo keentay in walaac weyn laga muujiyo arrintaasi. madaxweyne Trump ayaa lagu daaweynayaa xarunta caafimaadka ee lagu magacaabo Walter Reed National Military Medical Center oo ka mid ah isbitaalada ugu casrisan ee lagu daaweeyo militariga dalkaasi. xarunta qaranka ee daaweynta Walter Reed National Military Medical Center oo haatan madaxweyne Trump looga daaweynayo COVID-19 waxaa lagu tilmaamay xarunta caafimaad ee ugu casriyaysan ugu weyn isbitaalada militariga ee dalkaasi. isbitaalkaasi waxa uu taariikh dheer ku leeyahay iyadoo madaxweynayaal badan oo isaga kala dambeeyay talada dalkaasi lagu daaway qaarkoodna ay ku geeriyoodeen. The Walter Reed National Military Medical Center waxaa masaafo ahaan 9 mitir dhanka waqooyi galbeed u jira magaalada Washington ee ku yaalo aqalka cad ee laga arrimiyo dalkaasi.
bishii Juulaay 5 sanadkii 1938 ayuu madaxweynihii xilligaasi ka talinayay dalkaasi Franklin Roosevelt waxa uu xushay isbitaalkaasi oo taariikh ahaan horey albaabada loogu furay bishii November 12 sanadkii 1940 isbitaalkaasi oo ku yaala deegaanka Bethesda waxa uu masaafo ahaan ku fadhiyaa dhul dhererkiisu dheeyahay 243 acres waxa uu ka kooban yahay 100 rug caafimaad iyo takhasusyo waxaana ka gala qiyaastii 7,000 oo shaqaale caafimaad oo kala heer ah isbitaalkaasi waxa uu asal ahaan ka koobnaa 1,200 oo sariir balse waxaa la balaariyay awoodiisa markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka iyadoo isbitaalkaas xilligaas lagu daaway qiyaastii 2,500 askar Mareykan ah oo kusoo dhaawacantay muddadii uu socday dagaalkii ka dhacay Korea iyo Vietnam isbitaalka The Walter Reed National Military Medical Center oo magaciisa loo bixiyay sanadkii 2011 waxaa hore loo oran jiray Walter Reed General Hospital waxa uu shaqo bilaabay sanadkii 1909 sida laga soo xigtay maqaal laga qoray taariikhda isbitaalkaasi isbitaalka The Walter oo xitaa loo yaqaan isbitaalka madaxweynaha waxa uu daryeel caafimaad u fidiyaa xubnaha ka tirsan militariga qoysaskooda madaxweynaha ku-xigeenkiisa xubnaha ka tirsan koongareeska iyo garsoorayaasha maxkamadaha sare ee dalkaasi waxaa kaloo isbitaalkaasi lagu daaweeyaa mararka ay ogolaansho helaan xubnaha militariga sheeyaha iyo shaqaalaha safaaradaha ee ku yaala dalkaasi madaxweynayaal kale oo ka qayb galay munaasabada saxiixayo heshiiska nabadda ee dowladda Suudaan iyo kooxaha haweysan dhowr hogaamiye dowladeed oo isugu jira Afrikaan iyo Carab ayaa ku sugan caasimadda dalka Koonfurta Suudaan ee Juba iyagoo ka qayb galay munaasabad lagu saxiixay heshiiska nabadda ee dowladda Suudaan iyo kooxaha ku kacsan heshiiskaasi ayaa waxa uu ka dhacay fagaaraha xorriyadda oo ku yaala bartamaha caasimadda dalkaasi ee Juba la taliyaha madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan dhinaca ammaanka Tut Gutaluk ayaa sheegay in madaxweynayaasha Soomaaliya Djibouti Chad iyo ra'iisul dalalka Masar Itoobiya iyo Suudaan ay ka qayb galeen munaasabadaasi wasaaraha Uganda oo ka wakiila madaxweyne Museveni ayaa isagana goobjoog ahaa halka madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ka baaqsaday inuu goobjoog ka noqdo munaasabadaasi waxaana wakiil ahaan u soo dirsaday ergeyga khaaska ee Kenya ugu qaabilsan arrimaha dalalka Suudaan iyo Koonfurta Suudaan kala wasiirka arrimaha dibadda Qatar iyo wasiirka Sacuudiga ugu qaabilsan arrimaha Afrika iyo wasiirka batroolka ee dalka Imaaraadka iyo fudka kala socday Mareykanka midowga Afrika midowga Yurub ayaa iyagana goobjoog ah munaasabadaas lagu saxiixay heshiiskaasi madaxa dhexdhexaadiyaasha dowladda Suudaan iyo kooxaha haweysan Dayo Matauka ayaa sheegay in munaasabadaas heshiiska nabadda maanta lagu saxiixay fagaaraha Freedom Square oo ku yaala caasimadda dalkaasi Suudaan ee Juba kastaba haatee heshiiskaasi waxaa si wada jira u saxiixay dowladda Suudaan iyo ergooyinka kala socday kooxaha haweysan ee loo yaqaano The Sudan Revolutionary Front loona soo gaabay SRF iyo jabhadda kale The Sudan Liberation Movement of Minimanawi oo loo soo gaabay SLM-MN daawadayaal xubinta